هو markuu dhacay ama codkiisa oo kor u qaado dhulka dhan isla gariiro dhax oo dhacay waa isku naxo dhax inuu saaxo jira ninkaas waxaas nin ciyaal ma ahna waa nin maana sabab jirana bis ka bacdi oo dhacay waa loo wacay nina cunuga ku raadina cunuga markuu dhacay ku raadina gabadha waxa ugu dishay ninkii ka dishay ku raadina السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو هذا أصحابتها قيمة يقايا بلن وصلي حبيبك صلى الله عليه وسلم ما أنت waxaan wadnaa sheeko kale run ahaantii ka duwan sheekooyinkii hore waa kana sanaynaa maadaama ka hadlaynay self improvement iyo motivation iyo waxyaabahaas maanta waxaan gelaynaa sheeko gaaban oo ku dhacday yar aan saaxiibanahay odaga wuxuu iska aanin dhalinyaro ah adiga ciyaali cunug yar oo horta markiisii hore 10 jir 9 jir adiga meelahaas gabar yar oo adeer dhalana way la joogi jirtay marka oo saaxiib ay isla ahay macnaha dad wada socday ay markasta adiga isu dhow then waxa dhacday adiga odaga inuu gabadhii maalin ay kala tageen oo kala maqnaayeen gabadhii hooyiisa oo imata marka odagaan wuxuu dhahay si ku dhacdo adiga ina ooydi horta sideeda qaabkay ku dhici kartaa waxa dhacday inuu wali soo dilay maxay tahay waa kaasa ciyaal ugu goob iiga ciyaalkii adoo markaan iska dhalay cunug yar waaye fahmi kartaa 10 jir sidee lagu dili karaa bis adiga ciyaalkii waxay u geeday iyagoo meel jooga waxa dhacday marka inay arkaan ciyaal badan wuxuu marka ciyaalku u tagay wuxuu dhahay aaway ninkii cunugii dilay gabadha waxa u dishay gabadha oo canaanta waxay dhahan anaga ma ahayn waxa waaye ninkaas ninay u sheegan ayagu marka uma aysan sheegin cunugaas waa ma aysan dhinahay ninkaas nin ahaa aaway halkaas waa ka muuqday marka odaga geedu goynayay dabcan geed wuxuu ka reebay marna laakiin geedu goynayay geedka marka salka faaska markuu uga dhigto geedku waa gariiraha dhaani geedka madaxiisa qaybtiisa kora gariiraha dhaca macnaha lululmaysa awoodda oo ninku wax u goynay kaliya odaga marka wuxuu dhahay waxa uu dhahay ninkaas hayo loo waxa dhahay magaciisa waxa la yiraahdaa kashiido waraa kashiido al dhahay odaga waa loo wacay wuxuu dhahay ay diyaar wuxuu dhahay ninkii markuu dhawaaqay oo dhahay wow markuu dhahay ama codkiisa oo kor u qaado dhulka dhan isla gariiro dhax wuxuu dhahay waa isku naxo dhax inuu saaxo jira ninkaas waxaas nin ciyaal ma ahna waa nin maana sabab jirana bis ka bacdi oo dhahay waa loo wacay nina cunuga ku raadina cunuga markuu dhahay ku raadina gabadha waxa ugu dishay ninkii ka dishay ku raadina iiga ninkii waa u tagno wuxuu dhahay waa nin asaga dhanba hal kiila laakiin guunyo aad u maleeyay jawaan ah wuxuu dhahay waxa dhacay wuxuu jira wuxuu dhahay ninkan waraa gabadha waxa igu dishay dhahan ma wada ku soo orod marka ku soo orday sidaan inta la ii qabto ul yar camal kor ii tuuro dhaaniyo aa dhex laga qabtaan madaxa ciid ii geliyo waa isku naxay oo dhaaniyo waxa kugu dhacay ninkoo ugu gaaday markii hore dabcan mar labaad ninkan galo dhahay mar labaad dana oo dhacdo ku soo booday marka ku soo booday wuxuu dhahay inta i qabtay wuxuu dhahay kor soo ii haayo oo jilibka ii dhigo dhaaniyo kobeygo dhaaniyo xagga ku dhacday min xagga kale ku dhacday wuxuu dhahay madaxa uu horta dhulka ii geliyo dhahay waa wareero marka bis wuxuu odaga marka ilaa wuxuu odaga waa 7 jir laakiin hoos u baxay anagana wuxuu dhahay cunug maxaa iska qaleeyo 10 jir ilaa 9 jir baa oo cunugii wuxuu dhahay 3 mar markaan ninkii odaga ku soo booday hadba oo dhahay si xun oo ii dilayno oo meelaha jilbaha imurmurxii baa wuxuu dhahay gacanaha kobihii taraadsaday oo midba meel ka soo qabtay wuxuu dhahay hal gacan ku qabsada kobihii ulaan wata wuxuu dhamaanay horta laba ku qaba isdhow wuxuu dhahay laba ku qaba markaa maagay talaga u shileeyo soo dhibsada laba liigu gidiyo dhahay wali laba liigu qabtay laba markay wada dhaana dhulka tacabar ku rabta cararo dhaana gabadha inta gacanta qabta la carar xaga markaa gabadha ku qeylshooda maxaa aniga walaalay ii gelinaysa halis ninka soo ogaad ii dilay ninka ku dilay waxa ku dilay ciyaal baaro dhahay nin waayo dhahay ninka marada markuu dhulka ila galay hoostiisa arko dhahay nin weyn balay Allah ku rido ku ilaa ikisoo dhaco cunugu markuu ii sheekeynayso oo qoslay walaal firac ninkaas dhalinyarada uu dagaalamay gabar walaashiisa uu dagaalamay odo markuu dagaalamay waa laga awood badiyay haddana uu ku dagaalamay waa laga awood badiyay labadii jeer baa odo markii laga awood badiyay adiga markuu arkay inuusan adugu waxba uusan reebay kale wax uu dhahay diyaar waaye wuxuu dhahay igeysin walaalkiis aa dhahay walaalkiis miya aha anaga ku geeyay walaalkiis intuu loo geeyay odaga ateestan la dhacay walaalkiis marka waa fahmi kartaa
nin walaalkiis asaa i dilay ana walaalkiisan ka aana kashiidan ninkii la dhihi jiray marka wuxuu dhahay cunugaas anaa dilay adigana ma ugu dilahaa tooka biltook waa kala qabnaa dhahay marka arrinta waxayna tusaysaa saaxiibtinimada iyo in la ilaashado gabdhaha ama kula dhaaf nuucay doonta ah gabadha hadday walaashaa tahay rasuulku waa kii dhahay walaalka hadduu qaldan yahay u hili hadduu saxan yahana u hili hadduu qaldan yahay ka celi qaladka oo u hili hadduu saxan yahana dhibka lagu haayo maxay ay tahay uga hili dabcan marka gabadha kula dhalatay ama gabadha walaasha hadday qaldan tahana toosi haddii ay saxan tahana toosi lagama xigo gabar walaasha ah oo meel babliga qalad ku samaynaysa lagama xigo anigana lagama xigo maxaa samaynaysaa walaal waa inaad dhahdo walaal maxaa samaynaysaa anigu ma ogoli sidaa aad samaynaysa kaana yeeli maayo qalad haddii lagu hayana waa inaad dhahdo ka daaya qaladka gabadha dabcan marka waxaan ka faa'iidi karnaa meeshaas wanaagga ay leedahay walaaltinimadu run ahaantii sheekadaas aniga aad ii cajibiday adiga maxaad kala baxday anigu waxaan kala baxay ninku wuxuu dhahay geedka markii salka laga goynayo madaxiisu waa gariiraa u dhahay geed wuxuu dhaha waxaa ka shakiyo dhaha ma nin weyna meesha jooga mise ciyaar dabcan markaad sii fiiridid waxaa kugu soo dhacaysa sheekada geedka salka laga goynayo inaysan ahayn cunug yar nin weyn ay tahay meesha sheekada intaasay ku eg tahay fadlan haddaad cusubtaa nagu soo biir haddaa nala joogtayna meesha waa meeshaadii waa inay salaamayaa salaam